walaal waxaan ku weydiinayaa su'aalo ka jawaab adigoo raalli ah. Okay. Sheeg suuraddii ugu horreysay ee soo degta qur-aanka. Calaq. Sheeg suuradda ugu weyn qur-aanka kariimka. Faatixa. Meeqa suurad ayaa ku bilowda 3 xaraf? 13 suuradood. Meeqa suuradood ayaa ku bilowda alxamdulillaah? Kalana sheeg. Waa 5 suuradood. Alxamdu, Ancaam, Kaafi, Sabii, Faadir. Sheeg suuraddii sabab u noqotay islaamidii Cumar allaha ka raali noqdee. Daha. Suuraddee lagu naaneysay caruusul qur'aan. Raxmaan. Suuraddee lagu naaneysay qalbil qur'aan. Yaasiin. Sheeg suuradda aan ku jirin xarafka miim. Kawthar. Sheeg maalmaha usbuuca ee lagu sheegay qur-aanka. Jimca iyo Sabti. Sheeg nabigii ugu badnaa ee qur-aanka lagu xusay. Nabi Muuse calayhi salaam. Suuraddee ay ku jirtaa aayadda 11 nabi lagu xusay. Suuratu Nisaa. Suuraddee ayay ku jirtaa aayadda 16 miim ku jirto ama laga helo. Huud. Insi iyo jinni qur-aanka ayaa lagu sheegay. Sheeg magacii lagu kulmiyey. Asqalaan. Kumuu ahaa midkuu alle dhulka la jaray asaga iyo daartiisaba. Qaaruun. Sheeg suuradda u dhiganta 3 meelood meel qur-aanka kariimka. Ikhlaas. Sheeg meeqa aayadood oo qur-aanka ku jira oo ku bilowda xarafka daal. Kalana sheeg. waa 3 aayadood. Darajaatin, dacwaahu, duxuuran. Sheeg meeqa aayadood oo qur-aanka ku jirta ayaa ku bilowda xarafka shiin. Kalana sheeg iyo suuradaha ay ku kala jiraan. waa 4 aayadood. shahru ramadaan, albaqara, shahida allahu annahu laa ilaaha illaa hu, aali cimraan, shaakiran liancumi ijtabaahu, naxli, sharaca lakum min addiini shuuraa. الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المقني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.